Lamine Yamal waa mucjisada cusub ee ka dhalatay gudaha La Masia isagoo dunida ka yaabsaday markii uu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee taariikhda Barcelona u safta kulan rasmi ah, isagoo leh hibad dabiici ah iyo lug bidix oo sixir ah. Yamal ma uusan noqon kaliya ciyaaryahan mustaqbal leh, balse wuxuu si degdeg ah isu lakab saaray xiddigaha ugu saameynta badan kooxda koowaad, jebinta rikoorada gool dhalinta iyo caawinta ee horyaalka La Liga iyo tartamada Yurub. Waxay xaqiijiyeen inuu yahay saxiix dhex fadhiya kooxda oo aan u baahnayn lacag lagu soo gato, isagoo taageerayaasha Barcelona dib ugu soo celiyay rajadii iyo xamaasaddii lagu yaqaanay xiddigaha halyeeyada ah ee garoonka Camp Nou ka soo dhalaalay. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyay 17 qodob oo faahfaahsan oo ku saabsan waayihiisa kooxda Barcelona. Hase yeeshee, is-xasuusin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garay, like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Mahadsanid. Aan u sii gudgalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad: ku biiristii Akadeemiyadda La Masia. Yamal wuxuu ku biiray Akadeemiyadda caanka ah ee La Masia isagoo jira 7 sano oo kaliya sanadkii 2014. Tan iyo markii uu yimid, waxaa loo arkayay inuu yahay hibada ugu weyn ee akadeemiyadda ka soo baxday tan iyo waqtigii Lionel Messi. 2. Tababarkii kooxda koowaad ee Xavi Hernandez. Bishii September 2022, isagoo weli 15 sano jir ah, ayuu tababarihii hore ee Barcelona Xavi Hernandez u yeeray in uu la tababarto kooxda koowaad. Xavi ayaa markaas sheegay inuu yahay Yamal ciyaaryahan leh tayo ka duwan kuwa kale. 3. Taariikhda safashadiisii ugu horeysay. 29 Abriil 2023, Lamine Yamal wuxuu galay taariikhda isagoo noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee abid u safta Barcelona tartanka La Liga. Wuxuu bedel ku soo galay ciyaar ka dhaxaysay Barca iyo Real Betis isagoo jira 15 sano, 9 bilood iyo 16 maalmood. 4. Bilowgii xilli ciyaareedka 2023-2024. Xilli ciyaareedkan wuxuu u ahaa kii uu adduunka isku baray. Wuxuu noqday ciyaaryahan joogto ka ah shaxda koowaad, isagoo booska kala baxay xiddigo ka khibrad badnaa. 5. Goolkiisii ugu horeeyay ee La Liga. Oktoobar 8, 2023, Yamal wuxuu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee tartanka La Liga ciyaar ka dhan ahayd Granada. Tani waxay ka dhigtay ciyaaryahankii ugu yaraa ee abid gool ka dhaliya horyaalka Spain isagoo jiray xilliga 16 sano iyo 87 maalmood. 6. Kubad caawintiisa iyo hal abuuridiisa. Yamal kaliya ma ahayn oo kaliya gool dhaliye. Bishii Agoost 2023, ciyaar ka dhacday garoonka Villarreal, wuxuu sameeyay 2 caawin isagoo ku guuleystay laacibka ciyaarta Man of the Match. Wuxuu muujiyay aragti ciyaareed oo ka weynayd da'diisa. 7. Saameynta Champions League. Wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee ku soo bilowda tartanka UEFA Champions League ciyaar ka dhacday Porto. Sidoo kale wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee caawin ka sameeya wareegga bugbaxa ee tartankaas. 8. Rikoorkiisa gaarka ah. Yamal waa ciyaaryahankii ugu yaraa ee u safta Barca, gool dhaliyihii ugu yaraa ee La Liga, ciyaaryahankii ugu yaraa ee ka soo muuqda El Clasico. 9. Koobabkii uu la qaaday Barcelona. Yamal wuxuu qayb ka ahaa kooxdii ku guuleysatay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2022-2023. Inkastoo uu hal kulan oo kaliya u saftay xilli ciyaareedkaas, haddana wuxuu si rasmi ah ugu qoran yahay liiska horyaalada. 10. Heshiiskii qaaliga ahaa. Bishii Oktoobar 2023, Barcelona waxay ka saxiixday heshiis cusub oo soconaya ilaa 2026. Waxaa heshiiskaas lagu daray lacag lagu furan karo oo gaaraysa 1 bilyan si looga ilaaliyo kooxaha kale. 11. Ku guuleysiga abaalmarinta Copa Trophy. waayihiisii quruxda badnaa ee Barcelona iyo xulkiisa Spain waxay u horseedeen in loo aqoonsado ciyaaryahanka ugu fiican adduunka ee da'diisu ka yar tahay
21 sano isagoo ku guuleystay abaalmarinta Copa Trophy 2024, 12 lambarka 19aad iyo dhaxalkii Lionel Messi. Xilli ciyaareedka 2024-2025 Yamal wuxuu qaatay lambarka 19aad, kaas oo ahaa lambarkii uu Lionel Messi xiran jiray bilowgii xirfadiisa Barcelona, taas oo sii kordhisay isbarbardhigga labada xidig. 13 guulihii uu ka gaaray El Clasico, wuxuu ka mid ahaa xidigihii ku bahdilay Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu bishii Oktoobar 2024, ciyaar ku dhamaatay 4-0 isagoo dhaliyay gool qurux badan, waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee gool ka dhaliya taariikhda El Clasico. 14 xiriirka uu la leeyahay Robert Lewandowski iyo Rafinha. Yamal wuxuu sameeyay 3 weerar oo dila ah isagoo weheliya Robert Lewandowski iyo Rafinha, kuwaas oo ka dhigay weerarka Barcelona midka ugu goolasha badan Yurub bilowgii 2024-2025. 15 hab ciyaareedkiisa gaarka ah. Yamal waxaa lagu yaqaanaa inuu ka soo galo garabka midig isagoo adeegsanaya farsamadiisa lugta bidix iyo deganaanshaha uu ku horjoogo goolka, taas oo ah wax naadir ku ah ciyaaryahan da'diisu tahay 17 sano jir. 16 muhiimadiisa dhanka suuqgeynta. Yamal ma ahan kaliya xidig garoonka dhexdiisa ah, wuxuu noqday wejiga cusub ee suuqgeynta kooxda Barcelona iyo shirkadda Adidas, isagoo bedelay booskii ay baneeyeen xidigihii hore. 17 mustaqbalka iyo hadafka. Wuxuu hadda yahay laf-dhabarta mashruuca cusub ee Barcelona ee uu hogaaminayo tababare Hansi Flick. Hadafkiisu waa inuu kooxda dib ugu soo celiyo tartanka Champions League iyo inuu noqdo ninka ugu dambeyn ku guuleysta Ballon d'Or isagoo jooga garoonka Camp Nou. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanadka. Lamine Yamal ma ahan oo kaliya ciyaaryahan xirfad leh, balse waa rajada cusub ay ku duusho kooxda Barcelona. Isagoo weli aad u yar ayuu haddana muujiyay karti iyo deganaan ay ku adag tahay inay helaan xidigo badan oo sanado badan garoomada ku jiray. Taariikhda uu dhigayo maanta waa mid dhifi naadir ah. Taageerayaasha kooxda ayaa aaminsan in uu yahay xidigii xilligan casriga ah ee dib ugu soo celin lahaa sharaftii iyo guulihii lagu yiqiinay garoonka Camp Nou. Waxaan shaki ku jirin haddii uu sidan ku sii socdo in magaciisu uu gali doono baalasha dahabka ah ee taariikhda kubadda cagta, isagoo dhexli doona booskii ay baneeyeen halyeeyadii isaga ka horeeyay. Waa mucjisadii shalay dhalatay, maantana dunida haysata. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg waayaha quruxda badan ee Lamine Yamal. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.